soo dhawaada asxaabta inta badan dhaqaatiirta caalamka ayaa si caadi ah u daweeya bukaanada qaba xanuunada kala duwan iyagoo siiya dawooyinka caadiga ah ee loogu talagalay balse meelo ka mid ah dunida ayaa waxaa dadka lagu daweeyaa dawo dhaqameed mararka qaar si weyn kaaga yaabinaya haddaba qaar ka mid ah dawooyinkaasi ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijkan aan ku bilowno masaajeynta midiyaha inta badan midida ayaa loo arkaa mid halis ah iyadoo loo adeegsado falal dambiyeedyada ay ka mid tahay gacan ku dhiigilnimada marka laga soo tago in lagu jaro hilibka iyo waxyaabo kale waana aalad ay dadka si weyn ugu baqdaan haddaba midida ayaa dalka Taiwan looga adeegsadaa qaab kale oo ah in lagu masaajeeyo dadka taasoo dalkaasi laga yiraahdo daliyo oo micnaheedu yahay isku daweynta midida waxaana arrintaasi ay jirtay muddo ka badan 2000 oo sanadood ka hor nidaamkaasi ayaa waxa aslaan uu ka yimid dalka Shiinaha waxaana midiyaha lagu garaacayaa qofka dushiisa iyadoo laga xijinayo shukumaano dadka sameeya masaajeynta midiyaha ayaa khibrad u leh shaqada ay qabanayaan iyadoo aysan jirin wax dhibaato ah oo soo gaaraya jirka qofka xilliga ay hawshaasi socoto qiyaastii muddo 3 sano ah ayay qofka ku qaadanaysaa inuu ku shaqeeyo hawlahaasi cajiibka ah masaajeynta midiyaha ayaa lagu daweeyaa xanuuno dhowr ah oo ay ka mid yihiin madax xanuunka lagu xanuunka iyo waliba dhabar xanuunka isku daweynta carrada haddii aad xeeb carrada wanaagsan tahay tagto waxa xaqiiqo ah inaad isku aasi lahayd carradaasi iyadoo arrintan carruurta yaryar ay u tahay madadaalo aad weyn balse meelo ka mid ah caalamka ayaa carrada looga arkaa mid la isaga daweeyo waxtar weynna u leh qofka bini'aadamka ah waxaana meelahaas ka mid ah dalka Morocco oo ay dadka isku duugaan carrada kulul gaar ahaan xilliyada fasaxyada amaba kuwa kale ee dalxiiska halkaas u yimaada qaabkaasi loo adeegsado carrada ayaa la rumaysan yahay in lagu daweeyo kaliyaha neefmareenka iyo qaybo kale oo ka mid ah jirka aadanaha noocyada kala duwan ee carrooyinka ayaa waxa ay hodan ku yihiin qaar ka mid ah dhagxaanta ugu tayada badan waxaana dad badan ay si weyn ugu helaan inay hoos galaan ama lagu aaso carrada gaar ahaan marka ay kulushahay isku daweynta cayayaanka shinnida marka ay timaado xaalad caafimaad darro waxaa hubaal ah in qofku uu sameynayo waxyaabo badan si uu u bogsoodo haddaba meelo badan oo ka mid ah caalamka ayaa la isaga daweeyaa qaniinyada shinnida oo aan ka warqabno inuu xanuun yahay isla markaana ay keeni karto allergy gaar ahaan meesha ay qaniinto waxaa la rumaysan yahay in qaniinyada shinnida oo inta shinnida la soo qaado qofka dushiisa la saaro ay dawo u tahay cudurka allergikada Umar Abu Hassan oo degan magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa muddo 5 sano ah qaabkan dadka ku daweynayay iyadoo markii ugu horeysay uu isaga tijaabo isku sameeyay waxaana uu rumaysan yahay in hanaankaas uu yahay mid dadka ay ka heli karaan faa'iidooyin badan oo la xiriira in meesha uu ka baxo cudurka allergikada sidoo kale waxaa la aaminsan yahay in qaniinyada shinnida ay dawo u tahay cudurro kale oo ay ka mid yihiin robotisimada iyo cudurka gariirka qaniinyada shinnida oo qofka lagu dulqabto ayuu qofka awoodaa in marka dambe uu adkaysi u yeesho jirkiisa masaajada masaska haddii aan hore u soo sheegnay in la isku daweeyo mindiyaha carrada iyo qaniinyada shinnida hadda xaaladda sidaas waa ay ka duwan tahay oo markan masas ayaa la adeegsanayaa arrintan oo dadka ka yaabinaysa ayaa waxaa qofka korkiisa lagu daynayaa masas dhowr ah oo masaajeynaya dhammaan jirka qofka masaajeyntaasi masaska loo adeegsanayo ayaad ka heli kartaa magaalada New York ee ma aha mid aad u aadeyso dalalka ku yaala koonfurta bari ee qaaradda Aasiya hawshaasi ayaa waxaa ku shaqaysta haweeney la yiraahdo Zarbenteza inta badan ma jirto wax dhibaato ah oo ka soo gaaraya masaska lagu daayay dhammaan jirkaada iyadoo hawshaasi badankeed ay qabanayaan kooxdaasi masaska ah dad badan ayaa si weyn ula yaabay qaabka loo sameeyo masaajadaasi loo adeegsanayo masaska snail massage inta badan marka ay timaado gabowga dadka gaar ahaan dumarka ayaa waxa lacag badan ay ku bixiyaan sidii ay u heli lahaayeen kreemooyin isbedel ku sameeya wajigooda balse qaabka iyada snail massage oo ah mid la adeegsanayo xayawaankaasi yar ayaa la rumaysan yahay inuu isbedel ku sameeyo wajiga dumarka daada ah iyo kuwa ay ka soo baxaan firanka dhibcaha oo kala ah xayawaankaasi ayaa baabi'inaya waxyaabo badan oo ka soo baxa jirka gaar ahaan wajiga iyadoo haween badan ay tagaan goobahaasi si ay xal ugu helaan dhibaatooyinka haysta jirkooda xayawaankaasi yar ayaa sidoo kale cuna ama baabi'iya nabraha ka soo baxa wajiga haween badan oo ku nool caalamka ayaa isku dayaya inay isku daweeyaan qaabkaasi oo ah mid dunida ku cusub masaajada dabka ayaa waxay ka mid tahay qaababka kala duwan ee jirka looga soo saaro waxyaabo badan oo ku jira haddaba marka ay timaado xaaladan ayaa waxaa
dad badan oo dalxiisayaal ah ay sanad walba dalka Thailand u aadaan sidii ay ku heli lahaayeen masaajada dhinaca dabka. qaabkan ay waxa dadka lagu diriigaa lugaha iyadoo siyaabo kala duwan loo isticmaalayo dab mararka qaarkood lagu shidayo qofka dushiisa. sidoo kale qaar ka mid ah dadka sameeya masaajada ayaa lugahooda saara weel dab leh kadibna waxa ay sii mariyaan biyo iyadoo kadib lugta oo kulul uu ku diriigayo jirka qofka. dad badan ayaa si weyn ugu hela qaabkaas masaajada ah ee dabka loo adeegsanayo. inta badan waxay caan ku tahay dalalka ku yaala qaaradda Aasiya. isku daweynta geesaha lo'da. qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jakarta ee dalka Indonesia waxaad ku arkaysaa dadka lagu daweeyo geesaha lo'da duurka ee liado buffalo taasoo loo adeegsanayo toobin. ninkan caanka ku ah inuu ku shaqeysto toobinka ayaa rumaysan in geesaha lo'da ay qofka jirkiisa ka soo saarayaan unugyo ka mid ah jirka oo dhintay. qaabkaasi ayaa ah mid laga isticmaalo meelo badan oo ka mid ah qaaradda Aasiya, balse waxaad arkaysaa isla qaabkaasi oo dadka lagu toobayo jirkooda taasoo loo adeegsanayo waxyaabo u muuqda koobabka oo kale. waxaan goobaha soo gaara dad badan oo doonayo in qaabkaasi lagu daweeyo. laqitaanka kalluunka. neefta ayaa waxay ka mid tahay cudurrada ugu halista badan ee aan loo helin dawooyin sax ah, iyadoo ururka caafimaadka adduunka uu sheegay in 4% ay dadka ku dhacdo. haddaba kooxo ku sugan gobolka Hyderabad ee dalka Hindiya ayaa waxa cudurka neefta ay ku daweeyaan in malaay ama kalluun nool ay qofka laqsiyaan. kalluunka qofka laqsiinayo oo dhererka cabirkiisu uu yahay 5 ilaa 8 cm ayaa waxa lagu sii daraa dawooyin dhaqameed ay iyagu sameeyeen. waxaana marka qofka uu laqo si degdeg ah looga qabanaya sanka, taasoo ka yaabisay dad badan oo ku sugan caalamka iyadoo kumanaan ruux ay safaf u soo galaan. kooxda hawshaasi bilowday ayaa rumaysan in maalmo yar kadib uu qofka gebi ahaanba ka bogsoonayo cudurka neefta iyadoo aysan jirin wax lacaga ah oo laga qaadayo. balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in aan caddayn rasmi ah loo hayn habkaasi inuu dawo sax u yahay cudurka neefta. isku daweynta kaadida. aad ayay u adag tahay in qofka lagu daweeyo kaadi, weliba midda dadka. haddaba meelo ka mid ah caalamka ayaa kaadida lagu daweeyaa cudurrada qaarkood. cabista kaadida ayaa la rumaysan yahay inay u wanaagsan tahay waxyaabo dhowr ah oo ay ka mid yihiin jirka dadka iyo weliba gowsaha. inta badan kaadida ayaa loo adeegsadaa in lagu daweeyo qofka ay la soo diristo gowsa xanuunka daran, iyadoo la sheego in waxtar badan ay u leedahay. inkastoo aan la haynin baaritaan dhab ah oo muujinaya in dawo saxa ay u tahay kaadida gowsa xanuunka, ayaa waxaa haddana la siiyey tiro dad ah si loogu daweeyo dhibaatooyinkaasi ay ka cabtaan. haddaba naftaada ma u quur lahayd inaad ku dhaqaaqdo tallaabadaasi oo ah mid dad badan ay si weyn u dhibsadeen? xayawaanka dolphin. xayawaanka humbabarada ayaa la aaminsan yahay inuu yahay mid aad u caqli badan, iyadoo kooxo cilmi baarayaal ah ay xaqiijiyeen in maskaxda bini'aadamka iyo midda xayawaankaasi ay aad isugu dhow yihiin. humbabarada ayaa la sheegaa in xusuusteeda ay tahay mid wanaagsan. haddaba meelo ka mid ah dunida ayaa waxa xayawaankaasi uu qayb weyn ka qaataa dhinaca dhalmada dumarka, iyadoo ay la kulmaan haween badan oo uur leh. haweenka ayaa waxay la kulmaan humbabarada gaar ahaan marka ay bilad dhammaystaan, iyadoo la sheegay in ay badda gudaha u galaan. kooxa dad ah oo saaxiib dhowla humbabarada ayaa la sheegaa in hawshaasi ay si gaar ah ugu shaqeeyaan. waad ku mahadsan tahay daawade la socodka barnaamijka janalka maanta 2. haddii aad ku cusub tahay janalkeenna, fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaaladii ugu dambeeyey. mahadsanidin.